wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland Cali Maxamed Waran Cadde ayaa maanta kulan la yeeshay ciidamada kala duwan ee ilaalada xeebaha Somaliland ee gobolka Saaxil waxaana kulankani ay wada yeesheen wasiirka iyo ciidamadu goobjoog ka ah maamulka gobolka Saaxil iyo kuwa degmada Berbera iyo sidoo kale taliyayaasha ciidamada bilayska ee gobolka Saaxil waxaana ay kulankani ujeedadiisu ahayd sidii loo dhiirigelin lahaa ciidanka ilaalada xeebaha Somaliland isla markaana ay gacan adag ku qaban lahaayeen cid kasta oo ku soo xadgudubtay xeebaha dalka waxaana ugu horeyntiiba warbixin ka siiyay wasiirka hawlgal ay ciidanku dhawaan ka sameeyeen xeebaha Somaliland taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha Somaliland waxaa la mid ah ciidamada saldhigyada kale ee bari iyo galbeed ciidanka ilaalada xeebaha sida maamulka uu sheegay waa ciidan heegan u ah badaha Somaliland difaacooda iyo ilaalinta kheyraadka badda ee ku jira waxaan uga mahadnaqayaa wasiirka madaxweynaha wasaaradda kale ee had iyo jeeraale ku heelan sidii ciidanka ilaalada xeebaha kor loogu qaadi lahaa gudoomiyaha gobolka Saaxil Fahmi Cabdi Bidar iyo duqa degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin ayaa ka maamul gobol ahaan iyo ka maamul degmo ahaanba soo dhaweeyay talaabadan ay qaadeen ciidanka ilaalada xeebuhu iyagoo sheegay in ciidanka la garab taagan yihiin heel iyo hooba runtii waa kuwa aan ku faano waa kuwa aan ku ridno xeebta marka la yiraahdo dharan anoo gobol ahaan runtii iyo degmo ahaanba mar walba waxaan diyaar u lanahay wixii karaanka waxa farxad weyn iyo sharaf noo ah inaan maanta halkan uga mahad celino ciidanka ilaalada xeebaha Jamhuuriyadda Somaliland heeganka waa habeen maalin badda dheer ee Jamhuuriyadda Somaliland leedahay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland Cali Maxamed Waran Cadde oo gabagabadii kulankaasi ka hadlay ayaa gabi ahaanba ciidanka ilaalada xeebaha ku ambaliyay hawlgalkii ay dhawaan ka fuliyeen xeebaha dalka kaasoo ay xeebaha dalka kaga saareen markab laga leeyahay dawladda Soomaaliya oo ku soo xadgudbay xeebaha ay maamusho dawladda Somaliland waxaan idinku nimid inaan idin hambaliyeeyo hawlgalkii iyo dawladtuskii aad samayseen maalintii dhaweyd oo runtii mid aad iyo aad u qiimo badan ahaa oo sidii aynu la soconnay cadowgeennii soo galay ku soo xadgudbay badaheenna ay kabaha ka yaaceen oo si degdega uga baxeen meelihii ay ku soo gardaroodeen intaasi kadib wasiirka arrimaha gudaha Somaliland waxa uu kulan xog waraysi ah oo ay saxaafadu dabajoog ka ahayd la yeeshay taliyayaasha ciidamada ilaalada xeebaha Somaliland ee gobolka Saaxil Khalid Xasan Nuur telefishinka madaxa bannaan ee Bulsha TV magaalada Berbera.